nabiga wuxuu lacnaday ragga isku ekeysiya dumarka iyo dumarka isku ekeysiya ragga. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رجع اسكو اكيسيه دمركا iyo dumarka isku ekeysiyay ragga intaba waa la lacnaday. Waxa arkaysaa rag fara badan oo markaasi baraha bulshada dharkii dumarka diraca iyo dharkii dumarka lagu yaqaan soo gashanaya ee markaasi qaarkood riwaayada ay ku jilayaan adeer ama riwaayad ku jil ama ha ku jilin waxa tahay malcuun iyo mid lacnadan. lacnaduna waa naxariista Ilaahay oo qofka laga fogeeyo. naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii laga fogeeyo halkee baad aadaysaa waa cadaab. marka waxaan leeyahay adigoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dhigay rag inaad dumar isku ekeysiiso waa ceeb. sidoo kale dumarka ama gabdhaha isku ekeysiinaya ragga waxaan baraha bulshada ku aragnaa gabdho wato cimaamado qaarkood xiran khamiisyo qaarkood ay xiran yihiin macwiisyo. runtii arintaasi kama mid ahaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta intaba. gabdhaha Soomaaliyeed waxa lagu yaqaan xishood, diintana waxay faraysaa inay xishoodaan, inay is asturaan, sidoo kale inaysan ragga aysan isku shabihin. marka waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilasha intaba qaarka kale ha isku shabihinina. ragga yeysan isku shabihin dumarka, dumarkana yeysan isku shabihin ragga. views ama likes ama follows aad raadinayso adeer maalinta yoomul qiyaamo kuma noqonayso maaragtay qabriga kulama galayso. sidoo kale su'aalaha iyo cadaabka kama badbaadinayso. marka waxa wanaagsan in aan arimahaasi iska ilaalino. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.